runtii saad ula socotaan aad warbixinta ka dhageysanayseen khiyaartii ugu horreysay waxa aan maanta daafuraynaa waxaan is leeyahay waa laga gaabiyey oo ma aysan baahayn maanta in daafureen in mar hore hawshan la socotay ahayd waxa laga hadlay waa cudurkuna ma aha cudur qof saaxiib la inaad caddaan tahay inaad madow tahay inaad muslim tahay iyo inaad muslim ba ahayn inaad taajir tahay inaad faqir tahay intaba cudurkani ma aha mid maxaan ku dhahday si gooni ah qof u tiideynaya qofna u yahay waa cudur masiibo ah oo caalamka ku soo kordhay waad ogtihiin wuxuu soo maray wejiyo badan wejigii koowaad oo aad loogu dhammaaday wejigii labaad oo lamid ahaa ka saddexaad oo hadda cabsi weyn laga qabo oo saameynta uu ku leeyahay dadka iyo bulshada sida hadda ay sheegayeen agaasimayaashu aanan ku ekayn dadka waaweyn ama liita balse dhalinyarada naftooda ku dhacay waa cudur aanan horey loo aqoonin daawadiisuna ay ku timid si degdega in loo sameeyo waad ogtihiin qiimaha ay ku baxaysa daawadaas innagu waddan waxaan nahay tabar yar wax kasta oo aan u baahannahayna waxaan ka helnaa dibadda haddii talaalkiina la siiyey in la qaadan waayo oo waqtiis ugu dhacana waa nasiib daro shaqaalaha rayidka ah iyo qof kasta oo Soomaali ah waxaan u sheegaynaa talaalkaas inuu yahay talaal muhiima waajibna ay tahay gaar ahaan shaqaaluhu waa laf-dhabarka bulshada waa dadka ummadda u khidmeynaya haddii ayagii ay shaqaynayaan qofkay u khidmeeyaan u imaanayo talaal uusan jirin macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu faafiyo cudurkii oo cudurkii guriga uu tahay iyo qofka u imaanayay sida la aligeed waxaa waajiba shaqaalaha dowladda inay khasab ku tahay yacnaa lama heli karo qof lagu khasbayo isaga dantiisa qof lagu qasbahayo dhibashada ilaahay baa haya laakiin ka hortag in la sameeyo marka waxaan soo jeedinaynaa oo maanta aan daafuraynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel joogaanba inay waajib tahay in talaalka la qaato lacag ma aha waa cudur khatara waa cudur aad ka badbaadi karin waa cudur reerkaada ku dhici kara saaxiibkaa ku dhici kara sida la argeed waxaa waajiba in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel joogaanba inta u heli karta talaalkaasi ka faa'iidaystaan shaqaaluhuna waa waajib baa saaran maxaa yeelay shaqaaluhu waa kuwa goobaha shaqada jooga weeye haddii idinku cudurku inagu dhaco kuwaad u shaqaynayseen in dhiman ku dhaco macnaheedu waxa weeyaan gurigii 100% cudurku baa imaanaya runtii cudurkan hadda la sheegaya saddexaadna waa cudur aan is leeyahay calaamadaha lagu arkayo siduu u yahay aad buu uga dawan yahay kii hore marka talaalku waa muhiim waxaan rajaynaynaa inaad talada qaadataan khaasatan shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha kale ee meelaha private ka shaqeynaya waajib waxa ka saaraya inay qaataan wasaaradaha waxaan kula talinayaa una sheegaynaa mar haddii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay bilowday talaalkii iyo wasaaradda caafimaadka inay noqon doonto maalmaha soo socda in goobaha joogaan lagu tegi doono laguna khasban yahay in talaalka la qaato qofkii shaqaalahan talaalka haysanin waxay noqonaysaa awaamiirta la soo saaray qof aan u hoggaansamin wixii sharcigu qabana waa marahaya waxaad la socotaa mar dhow markuu qofka safraya hataa oo caalamku aadaya hadduusan wadanin shahaado certificate oo talaal uusan qaadanin inuusan dhoofi karin taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha ee goob shaqa usoo shaqa tegahaya waa inuu talaalan yahay wey way khasab ku tahay wey maxaa yeelay waa waajib ina saaran weeye waxaan is leeyahay intaasi baa dardaaranka aan kusoo koobaynaa waxaan ka hadlaynaa waa naftiina waa naftaanada talaalkaana ha la qaato taasaan is leeyahay waa arrinta ugu muhiimsan cudurkan ilaahay baa awood leh waad garanaysaa cudurka awoodda uu leeyahay iyo saa wax lagu qaban karin haddana dadaalada jira iyo daawooyinka lasoo saarayo ee intaasoo malyan ay ku baxayso innagu aan ku helin lacag la'aanta lagu deeqayo dee in laga faa'iidaysaa la rabaayo aysan dhicin in sidaa agaasimaha uu sheegayay nabar aan aad loo filin baa laleeyahay waa talaalan yahay tiro ka badanna waa ay jirtaa dhaqanka Soomaalida innagoo ilaahay talada saaranayna haddana dad badan baa iska indha tira oo waxay dhahayaan af la xidhanhayo iyo gacmo la dhaqahayo wix ilaahay keeno baa ku dhacay waa run ilaahay baa qadaraya laakiin ilaahay haddana marka sabab uu samaynayo marka in la taxadaro oo maxaan ku dhahday la dadaalo afka la xidho gacmaha la dhaqdo talaalka la qaato waajib weeye waxaan kaloo ku codsanaynaa qofka dareema calaamadaha uu leeyahay dhaqan Soomaalida jira inayna qarsanin baa la rabaa qofku inuusan iyo malaria haysa inuusan iyo hargab baa haya يعني عيب ما أنا هذا التست من سويسرا أنت أنجلين هذا طبعا بنرد سويسرا ماشي قف وين أسبارة أو إسفيريا هذه اللي جاهل واحد بدأنا سنفت هذه وحلي واحد قبل كرو أياد إيمانيس
laakiin dad qarsato guriga aad fadhido reerkina aad ku daarato shaqaalihi aad ku daarato bulshada aad ku daarato adigoo sababada ay caabuqeenna aad tagta dhakhtarkii dee wax tari maysid cudurku wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay dabatag ma laha taasna ceeb ma aha waa cudur adduunka o dhan ku dhacaya weeye marka in laga xishoodo ma aha qof waa inuu test sameeyaa dareen hadduu garto waa inuu isdareemaa waa inuu dhakhtarka u tagaa la socodsiiyaa muddada uu dareemayana waa inuu isxayiraa uusan reerkii iyo carruurtii dadka usan dhex tegin aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa in hawshaasi ay maanta noo bilaabatay dardargelinteedana ay socon doonto wasaaradaha kale na waxaan usoo jeedinaynaa iyagana sidaasi lamid ah in goobaha loogu tago lana tallaabo shaqaalaha aad baad mahadsantihiin